madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar Cagshar oo maalintii shalay gudida fulinta ee xisbiga xukuumadda dowlad deegaanku ay ku doorteen magaalada Sooba ayaa ka hadlay waxyaabaha ugu horeeya ee uu qabanayo waxaana uu ku nuuxnuuxsaday inuu cadaalad ku hogaamin doono dowlad deegaanka la socotaan waddanka deegaanka ku noolahay iyo gudaha waddankan ilaa iyo 20 sano u dambeysay dhibaatooyin badan ka socday macnaha marka toddobaad sano leenahay ma aha inaan ka wado toddobaad ka soo dhigata jirtay ka hor way jirtay sida la socotaan laga bilaabo xilligii gumaystuhu nagu wareejiyay waddanka hadda ka tirsanay Ethiopia dadkeen hal maalin ay helin xorriyad ay maaragtay u gudbiyaan dareenkooda siyaasadeed dhaqankooda diintooda kuma maaxbanaan marka maanta baatay haystaa waa mid ka timid xilligaas taariikh ka timid weeyaan waxaa laga yaabaa in ay kala xanuun badnay marxaladuhu oo tii u dambeysay hadda soo dhaaftay 20 sano u dambeeyay runtii xanuun kala badan oo jira gaari ugu jira la socda laakiin dabcan dhibaatada deegaanka mar ma halkaanaato waa mid taniya xilligii waa arrin la xidhiidha lahayd gacantii ugu wareejiyey dad aan magaalada tashan waddan kale taasoo keentay marka in dadkaasi loo isticmaalo si dad maaragtay gumaystahay soo kale wax xaqiiqa u jirta weeyaan wax la iska dhigtay kara maaha marxaladda lagaga baxayaa waa mid u baahan shacabka in ka wada tashado xilligeeda laakiin hadda waxay noo yaallaan inaan u tashado wixii hadda maanta dhibaatooyin jiraan xallino kuwa ugu muhiimsan waxaa weeye dhinaca insaanka xorriyadda qowlka ganacsiga in xor laga dhigo in madaxtinimadu ayna noqon meel qof uu awood gaar ah ku leeyahay oo noqdo dadka lagu shaqeeyo in la is ixtiraamo in diintii iyo dhaqankii lagu soo celiyo deegaankii si xawliya looga shaqeeyo xogaa maanta aad iyo shucuur badan baa runtiga muuqata oo markadaysaa kuwii toosaa waddanka maqnaa marka xogaa emotional ayaa lahay laga dul qaadanaysaan dad fara badan oo Soomaaliyeed kala gedisan oo kala qabaayla oo kala deegaan hadda isugu yimid oo dhammaan maanta rajaynaya dhulkooda iyo waddanka wanaagsan oo fiican ugu noolaadaan ayaan arkaa aad iyo aad u mahadsantihiin Allahu Akbar cadaalad lagu dhaqo inaana noqon televitalis isagu kala ka timada ku hogaamiyo maxkamadda ay noqoto in dhammaan tanjurooyinka dawladda sida ay u kala sareeyaan ay nuuga shaqadiisa ugu maxbanaanaan taasoo ayna shakhs u hato mid dadkoo dhan ay talinayaan taas waxay badbaadinaysaa aniga badbaadinaysaa inaan khaladaad gelin idinkana way badbaadinaysaa marka ugu horreyn kolley waxyaabaa ii qodobaysna wuxuu ahaa xuquuqda insaanka kow in horta wax laga qabto inaan iscafin waa muhiim inaan wixii hore ee dhacay ka tagno waa muhiim laakiin haddana dadkii dhibaatooyin ku dhaceen inay iyaguna dareemaan inay ka mid yihiin bulshadina iyaguna waa muhiim taa macnaheedu waxaa weeye iyagoo oo kuwii dhibta geystay la dhibaatay kuwii dhibta ku dhacday wax loo qabto oo maaragtay si ay bulshada ula sinaadaan Mustafa Cagshar ayaa waxa kale oo uu sheegay inaanay jiri doonin qof dambe oo loo dhibaataynayo madaxda ayuu wax ka sheegay xoog saaran doona xorriyadda qowlka أنا وضعت أول قرار عن هالشيء فريق في مارتي شعل ما أنت بقى إن جروب المعاصرة عن حرية السكرية يعني في أروهاي خوف كسر نوع حال نقول نقاط عيب بكذا لكن دون ذلك عليه إندستري أو وش قيس ولكن في إنجليز كيو خوف إنه ملاحظة حاليه أو دقن كودا يوم مقال كودا يهذا الكودا احتشر وعبى الوهرة وإندستري تم أو وش قيس إنه حقين وحليها تعب باليوم السحرة. أنا تعيست على مركب وتروحي تعيست يلا ما تحب باتين. waxaa talatan kartaan laba qodob ma loo goleyn oo sida qawaaniinta adduunka iyo waddanka ba in qawaayil isku dhufto oo reebo ka kac oo reebo la leeyahay waa la oran karaa reebo baa xabadsaday waa la waxaas dhib ma waa la oran karaa mustafa meeshii yimid waxa ay reerkooda soo baxay waxaas dhib ma laakiin reebo ku duul incitement baa la yiraahdo khalad waxa kale oo khalad wixii diinta iyo akhlaaqda ay diidayso sawir qaawan aflagaato ay noocaas waa reebo حسن قليد ورركه هون كيبل هرقيسا